qeyb oo ka mid ah dadkii loogu talagalay in ra'yiga laga soo ururiyo ama loogu talagalay in warbixinada laga qaado. waxaa ilaahay mahadiis guddiga uu sameeyey la kulanka ugu horeeyey waxaa lala sameeyey maxamed guddiga waxa waaye guddiga wuxuu ma aragtay ka kooban yahay 7 xubnood. 7 xubnood waxaa guddoomiye u ah ma aragtay xaaji xuseen maxamed macalin, waxaa guddoomiye ku-xigeenka ah marwo faadimo qumane, xogeyaha guud waxaa ka Cabdiqaadir Cabdullaahi Xasan, waxaa xiriirinta ka ah maxamed nuur cali baaba, waxaa ku jiro ilaahay kuma darnaade sheekh xuseen axmed cusmaan, waxaa kaloo ka mid ah jaylaani abuukar profesorka ruush, waxaa kaloo ka mid ah zaynab gabar la dhaho. 7daas xubnood uu ka kooban yahay. qaybihii ugu horreeyey ee aan la kulanno waxaa ka mid ah maxamed eenow. waxaan kula kulannay xafiiska, uu noo sameeyey waa naga ajiibay kulankeenii. waxaan kula kulannay xafiiska taariikhda markii ay ahayd waxaa isagana xafiiskaan kula kulannay. waxaa soo jeediyay cabasho badan, cabashadii waa ka shaafinay. waxaan isla garanay wixii talooyin ah uu na siinayo. wuxuuna siiyey talooyin aada u fara badan, wuxuuna noo ballan qaaday wixii waqtigaas ka dambeeyo inuu profesorka nala shaqeynayo. wuxuu u sameeyey yabo oo ma aragtay oo dhinaca sanduuqa lacagta ah. lacagtiina waa baxshay, lacag $100 ayuu baxshay. waxaa ku xigay aan la kulannay engineer ayo, isagana waxaan kula kulannay xafiiska. waxaan isweydiinay ma aragtay wixii iyo barnaamijyadii loogu talagalay. isagana wuxuuna siiyey talooyin aada u fiican. talooyinkiisana waxay ku noqdeen kuwo wax ku ool ah. qaabkii iyo nidaamkii dhaqaalaha xisbiga loo soo kobcin lahaa ayay ka mid ahaayeen. wuxuuna tilmaamay arrimo aada ma aragtay u fara badan in la sameeyo, sida in jaalidyaha dibadda in sanduuqyo iyo nidaamyo loo abuuro, hataa gudaha xisbiga in laga abuuro sanduuq lacag hataa shilimaad hataa in lagu rido qofkii imaado wuxuu heli karo uu ku rido, si loo soo saaro magaca ma aragtay xisbiga. isagana wuxuu noo ballan qaaday yabo isla waqtigaasuu na siiyey $50 uu kusoo kordhiyey qasnada oo xisbiga. waxaa kaloo la kulannay professor maxamed cumar dalxa. professor maxamed cumar dalxa ayaan la kulannay. waxaan kula kulannay ma aragtay gurigiisa. isagana waa si aan talooyin iyo nidaam uga weydiino. isagana wuxuuna soo siiyey talooyin aada u fiican oo ka hadlaya ma aragtay qaabkii loo ururin lahaa ama loo kulmin lahaa dadka. isagana sidoo kale wuxuu dhahay waxaan diyaar u ahay wax alla wixii oo ku saabsan xisbiga inaan wax ka qabto. kadib waxaan la kulannay sadiiq cabdi, waxaan la kulannay xasan axmed sadiiq oo xildhibaan hore ahaa. isagana waxaan kula kulannay xarunta. wuxuu noo soo gudbiyey isagana talooyin qaabka iyo nidaamka waxbarashada ka mid ah. kadibna wuxuu yidhi wax alla wixii oo aniga aan bixinayo ama dhaqaale dib ayaan idinka soo sheegi doona. intaas kadib waxaan la kulannay kheyr allah siiyo sheekh ibraahim cali yarow oo isagana ka mid ah waxgaradka ummadda. wax badan oo dhaliil ama nidaam uu tirsanaya ayaa jiro. nidaamkii wax badan dood markayna dhexmatay waa ka shaafinay, waana garowsaday dhibaatada dhacday inay si qalad u dhacday. wuxuuna noo ballan qaaday in uu ma aragtay maadaama uusan ahayn hadda asaga nin xisbi ah, nin ka tirsan ma aragtay nidaamyo kale iyo qaabab kale ku jiro, laakiin wuxuu noo ballan qaaday inuu garab istaagayo nidaamka xisbiga, inuu garab istaagayo. wuxuuna noo ballan qaaday dhaqaale ilaa $500 ah, waana bixiyey.
guddiga intaas kadib wuxuu la kulmay wasiiradda wasiir Maryam waxaan kula kulnay ayadana gurigeeda waxaa aan ku gaarnay muddo dheer ayadana wixii tala ah iyo nidaam way soo bixisay waxayna ballan qaaday in ay garab istaagayso maaragtay xisbiga diyaarna u tahay inay wax ka qabato nidaamkii iyo qaabkii wax looga qaban lahaa nidaamka xisbiga wixii dhaqaale ahna ay ka wada hadli doonaan xildhibaanada iyo nidaamkaas walow annaga qorshaha uusan noogu jirin haddana ayada wixii nidaamkeeda iyo qaabkeeda safar ayaa soo galay safar ay ku maqan tahay aydan ka sugayna waxaa ka dambeeyey oo aan la kulannay isagana xildhibaan Aymoy oo aan kula kulannay isagana xafiiskiisa ama gurigiisa oo ku yaalla Weyliye isagana sidaas si la mid ah ayuu noo soo dhaweeyey wuxuuna ogolaaday in uu diyaar u yahay wax alla iyo wixii xisbiga maadaama uu isaga xisbi kale madax ka yahay haddana wuxuu diyaar u noqday in uu xisbigan uu yahay xisbiga keliya ee mustaqbalkiisa ah ama barnaamijka uu maanta ku dhex jiro siyaasadeed xisbiga uu ka yimid inuu yahay ilaahay mahadiis waaye isagana wuxuu diyaar la noqday oo ogolaaday in uu wax ka baxsho dhaqaalaha sanduuqa lagu shubaayo wuxuuna bixiyey $100